قلب وناكسن كلنتي وعنا خيرتها ودي نقل حريرتها وسبت اللي حتوبان كبش عبر سنة لبدا كون يلبي لباتنك برنامج كدوريدا يمان تاريمها ندين هو إنه حكميدا لبدا أقل برلمان كفدرال كي سوماليا ومانتا إسكده حولي لبا قدي وكشقين دونا قبان قابدا يدور الشدة لبداسي بدون لبداسي أقل وزيرة أريمها قدها يور فافنتي سومالي لان وصفة فاسن وقها الله يحارق ورياشة مالنتي أفراد كجري حبسية هرقيسة وزير كرفافنتا يعرب كواد كيين ورياشة حيران لمرسين دونا شرعيقا saxaafadda wixii hadda xiran waxa loo mari doonaa wadada sharciga annagoo aan ka tegin iyadoo loo eegayo in dhalinyaro fara badani ay ku xiran tahay inta waxaana la eegi doonaa sida sharciga qorayo cidda dambi gashay iyo cidda aan dambi gelin ruushka oo maalintii labaad oo xiriir gantaal la dhacay warshado militari oo ku yaal magaalada caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev iyo ku dhawaad 1,000 qof oo kamid ah dadkii ku hantibeelay suuqa waahayn oo maanta xukuumadda Soomaaliland ay u qaybisay lacago ay ganacsigooda ku bilaabi karaan haddaba maxay yihiin dadka maanta lacagahaas la guddoonsiiyay dadkii aan maanta siinay runtii waxay isugu jireen dhammaan inta suuqa ka kooban yahay hadday tahay khudradley hadday tahay bacadlayaal hadday tahay bacdiyaal hadday tahay intii suuqa ugu nugleyd oo qaybo kasta suuqa ay ka mid tahay oo runtii rag iyo dumarba u badnaa barnaamijka waxaa isku dusdubaridey kawtar maxamed cabdullaahi anigo cabditax ibraahim cageerna la socodsiinaya balse marka hore wararka caalamka iyo cabdiraxmaan cali dembiil mahadsanid cabdiftax ruushka ayaa maalintii labaad weerar ku qaaday xarumaha militariga iyo warshadaha ee ku yaala caasimadda Ukraine Kiev waxaana weeraradaasi haleeleen warshad samaysa taangeed iyo baabuurta gaashaaman aroornimadii hore ee saaka maayarka magaalada ayaa sheegay in hal qof ku dhintay weerarkaas tiro kalena ku dhaawacmeen saraakiisha Mariupol ayaa sheegay in duulaanka ruushka ay qorsheynayaan inay xidhaan dhammaan wadooyinka ka baxa magaalada ayna ururiyaan dhammaan ragga ku hadhay waxayna sheegeen in markaas la geyn doono magaalo u dhow si loogu kala saaro halkaas dowladda ruushka ayaa dalkeeda ka mamnuucday ra'iisul wasaarihii Britain Boris Johnson iyo xubno ka tirsan dowladda UK Moscow ayaa sheegtay in iyagu argoosanayso cunaqabatayntii ay hore u saartay London howlaha samata bixinta ayaa ka socda dalka Koonfur Afrika si loo badbaadiyo nolosha 10 qof oo lagu leeyahay daadad halakeeyay gobolka KwaZulu Natal kooxaha gurmadka ayaa wajahaya daadad hor leh iyadoo roobku mar kale ka da'ayo guud ahaanba gobolkaas Tandile waxay u ololeysaa deegaanka waxayna sheegtay culimada saynisku inay howlahan hore uga digeen xaalkuna sidan ka xumaan karo There are varying impacts that are taking place. Waxa aan xogta haynay muddo ka badan 30 sano taas oo muujinaysay in gobolkan aan ku sugannahay uu halis ugu jiro roobab gaar ahaan bariga waddankeena ee Durban taas oo imika dhacday sida aan ka warhayno warbixin ay bishii 8aad ee sanadkii hore ay soo saartay hay'adda isbeddelka cimilada ayaa waxa lagu sheegay in gobolkan uu wajihi doono xaalad hor leh oo ah duufaan in ka badan intii aan aragnay ee dhacay a lot more climate shocks taking place Faransiiska ayaa sheegay in bilo gudahooda ay ku soo gabagabeynayaan bixitaanka ciidamadooda ka jooga dalka Mali balse waxay sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka kooxaha Islaamiyiinta ee ku sugan gobolka Saaxil xiriirka u dhaxeeya Bamako iyo Paris ayaa hoos u dhacay kadib afgambigii military ee sanadkii hore ka dhacay halkaas warbaahinta rasmiga ah ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in dowladda militarigu ay sii deyn doonto maxaabiista u xidhan siyaasadda isla markaana ay qaadayso xaaladda degdega ah ee saaran dalkaas muddo 3 maalmood gudahooda 10 qof oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo siyaasiyiin ayaa la xidhay kadib markii ciidamadu ay rideen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee rayidku hogaaminayeen bishii Oktoobar magaalada Xi'an ee Shiinaha ayaa ku soo rogtay xanibaado 13 milyan oo qof oo degan halkaas 4 maalmood ee soo socda si wax looga qabto Covid maqaayadaha iyo goobaha madadaalada ayaa la xidhay waxaana dadka deegaanka loo sheegay inaysan ka bixin guryahooda xayiraado sidan oo kale ayaa iyana laga hirgeliyay magaalada kale ee lagu magacaabo Sishu ugu dambeynna markab sida shidaalka naaftada ah ayaa ku degay xeebaha dalka Tunisia maamulka deegaanka ayaa sheegay inay ka baqayaan masiibo deegaan markabkan ayaa sidee 750 tan oo naafto ah xilli cimilo xumo iyo dayo haleelay u badan tahay inuu ahaa wixii sababay degitaanka markabkaas shaqaalihii markabkaas oo ka koobnaa 7 xubnood ayaa la badbaadiyay ka hor intii aanu markabku qarqoomin dhageystayaal wararkii caalamka ee BBC-du waa naga intaas aad u mahadsantahay cabdiraxmaan cali dimbil ayuu kaasi wararka caalamka qodobadii ugu door koronay oo la socodsiinay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka
waa tahay markana aynu ku bilownay wasiirada arrimaha gudaha iyo warfaafinta ee jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday Somaliland ayaa waxay faahfaahiyeen oo si faahfaahin ay uga hadleen xariga wariyaasha maalinta afraad ku jira jeelasha magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in aanay dambi u yeelin cid aan dambi lahayn qof kastana uu heli doono cadaalad wasiirka warfaafinta ee Somaliland Salebaan Yuusuf Koore ayaa goordhaweyd oo ka hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu carab ku adkeeyay in wariyaasha xiran la marsiin doono sharciga saxaafadda wixii hadda xiran waxaa loo mari doonaa wadada sharciga annagoo aan ka tegayn iyo iyadoo loo eegayo in dhalinyaro fara badani ay ku xiran tahay intaba waxaana la eegi doonaa sida sharcigu qorayo cidda dembi gashay iyo cidda aan dembi gelin cid alle ciddii dembi aan gelin waa la sii dayin doonaa sharcigaana sii dayin doonaa ciddii dembi gashayna way arki doonaan dadku markaa qaran ahaan waxaanu nahay dal sharci iyo kala dambayn leh waanaba waa ka xunnahay ma jecelin mana jeclaysan doono inta tiradaa la-eg oo saxaafadda ka shaqeeya la xidho laakiin haddii qofku uu dembi galo qof kasta oo muwaadina uu dembi gala dembigiisa waa lagu qaaday askarta xaq bay u leedahay inay qabato maxkamad la geeyo dastuurka iyo maxkamadaha sharciga dalku wuxuu ka qabo la maro taasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Somaliland Salebaan Yuusuf Koore dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay ka xun yihiin wariyaasha xiran hase yeeshee sharciga uu qof walba ka sarreeyo waxa uu dhanka kale fariin u diray kooxo uu sheegay inay dowladda dhaleeceeyeen oo ay ku dhaleeceeyeen xariga wariyaasha waxaanu yidhi halkan waxaan doonaynaa inaan ka cadeyno marka ugu horeysa saxufiyiinta xidhan oo aan annaguba ka xunnahay in mar qura la idhaahdo tira intaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin inaan cidna sharci si khaldan loogu qaaday aan lagu abaabulaynin waxaan doonaynaa markaa arrintaas sida sharciga Somaliland uu yahay baynu maamulaynaa si la difan baa loo maamulayaa si aan loogu talax teginoo maxaan ku dhahdaye dhib loo abuurin baynu kuwa loo maamulayaa dowladda Somaliland saxaafadda weligeed yaalahayd marna gacan maroojin kumay samaynin marna dhibaato kumay samaynin waxaynu doonaynaa markaa uma jawaabaya hadda waxna ka tari maayaan dad isle saxaafadda kalsooni kaga samaysta oo u dhigaya in ay dowladdu khalad gashay waqtigeeda ayaanu ka hadlaynaayo waxaan isleenahay taasi iminka marxaladeedii lama joogo kaasi waxa uu ahaa Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland warkan ay hadaba waxa uu imanayaa kadib markii saaka ay maxkamadda Maroodi Jeex ee ciidanka dambi baarista ee Somaliland ay siisay muddo 5 maalmood ah oo ay ku sii hayn karaan wariyaasha la xiray Arbacadii la soo dhaafay wariyaasha ayaa la filayaa in 5 maalmood kadib lagu soo celin doono maxkamadda hadaba goor sii horeysay aan khadka telefoonka Hargeysa waxaan wax ku weydiiyay wariyahayaga magaaladaasi Sadiq Maxamed Burmad oo faahfaahinta bal marka hore ku bilaabaya wixii saaka dhacay عبد الفتاح وساكا waxa aruuriyadii markii ugu horeysay la keenay 13 wariye lagu xiray dhacdadii xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ka dhacday taasi oo ahayd rabshadii dhaxmartay ciidanka ilaalada xabsiga iyo maxaabiistii gudoodka sameeyay wariyaasha waqtigaasi goobjoog ka ahaa oo rabay inay ka soo warramaan halkaasi boolisku ay ku qabteen ayaa wariyaashaasi oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ba xirnaa ayaa saaka markii ugu horeysay la keenay maxkamadda degmada Hargeysa Sadiqo marka hadii maxkamadda la keenay wariyaashaasi dacwad ogayaasha iyo booliskuba maxay sheegeen maxkamaddu maxay ka tiri wali dacwad la soo oogay oo rasmi ma jirto Cabd Fataax waxa jirta waqti ka badan 48 saacadood in qofka muwaadinka ah xabsiga lagu hayo iyadoo wali aan dacwad lagu soo oogin ayaan sharcigu ogolayn marka boolisku inta badan waxa ay xaq u leeyihiin inay maxkamadda keenaan marka xilligaas ku dhaafto oo ay ogolaansho maxkamadii ay weydiistaan ay ku sii hayaan hadii ay wali u baahan yihiin hayn ay baaris ku sii sameeyaan marka ujeedadii saaka loo keenay ugu weyneedna taas bay ahayd oo ciidanka dambi baarista ee waday booliska ka tirsan maxkamadda waxay ka dalbadeen in maalmo ay hayaan oo baaris ay ku sameeyaan loo sameeyo marka maxkamadduna waxay go'aan ku soo saartay in muddo 5 maalmood ah oo kale ay xabsiyada ku sii hayaan oo muddadaasi 5 maalmood ah oo maaragtay boolisku ay sheegeen inay yihiin maalmaha ay doonayaan inay ku baaraan ama ay ku soo diyaariyaan eedaha loo haysto wariyaasha mar haddii booliskii loo ogolaaday 5 maalmood oo ay dalbadeen in la siiyo si baaritaan dheeraad ay u sameeyaan dhinaca kale wariyaasha waxaa matalaya qareeno difaacay qareenada iyagu ma hadleen Cabd Fataax way joogeen markii meesha la keenay qaraarka iyo muddada 5 maalmood ee loo jarayna way
warqabeen way la socdeen laakiin wax hadala oo maaragtay xog faahfaahsan sameynaya oo ay meesha ka sheegeen ma jirto maadaama oo weli wixii ay ka hadli lahaayeen oo ah eeda loo haystaba aan weli la soo gudbin laakiin goobjoog way ahaayeen dabcan waxaa tiri waxaa xiran 13 wariye oo qaar ay u shaqeeyaan warbaahin caalami ah sida BBC sidoo kale marka sidee looga dareemayaa xariga wariyaasha magaalada Hargeysa cabdifataax waxay ahayd intii ka dambeysayba dhacdadii lagu xulxay wariyaashan waxa ugu weyn la hadalhayo marka imika inta ugu badan dadku waayadan dambe ama sanadihii ugu dambeeyay dhan dadku halka la iska arkay laga wada hadlo la iskaga xog qaatay lagu dooday wax lagu falanqeeyo baraha bulshadana sheekadan waxay ka ahayd qodobka ugu weyn lagu la fagurayay laga doodayay waxna la isku weydiinayay dhinacyo badan baa laga eegayay dad badan waxa ay eedeynayeen wariyaasha oo ay ku eedeynayeen in maaragtay ay marin habaabin sameeyeen ama aanay xaq u lahayn inay soo kale ka waramaan waa qaybo dhan oo dad ah oo iyagu maaragtay wariyaasha dhaleecaynayay iyaguna qaybo badan oo kale oo waxa jiray iyaguna maaragtay wariyaasha difaacayay muhiimadda ay leeyihiin wariyaasha ka hadlayay u doodayay inaanay meeshaasi wax qalada aanay gelin xataa maaragtay cabdifataax baraha bulshada uun arrinku kuma ekeene waxa uu ahaa mid maaragtay xataa siyaasiyiinta tusaale ahaan xisbiyadii mucaaradka oo kale ay aad uga hadleen oo ay cambaaraynayeen falalkaasi lagu xiray wariyaasha oo ay dowladda ku eedeynayaan in maaragtay arrintaasi ay tahay gaf ay ka galeen saxaafadda kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay haatan saacadu waxa ay tilmaamaysaa 4 galabnimo iyo 42 daqiiqadood waqtiga bariga Afrika markana magaalada Muqdisho aynu tagno halkaas oo maanta labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay iska dhaxuleen laba gudi oo ka shaqeyn doona qabanqaabada iyo doorashada labada gudoon ee labadaasi aqal waxa ay imanaysaa kadib markii maanta ay aqaladaasi yeesheen kulamadii ugu horeeyay ee kalfadhigii koobaad ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya haddaba faafahinta warkan waxa inoo haya wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan toos khadka telefoonka ugu jira Ibrahim maxaa ugu dambeeyay عبد الفتاح waxa uu dambeysay in aqalka sare ee baarlamaanka federaalka senatarada ka tirsan ay soo gudbiyeen 5 xubnood oo ay aniraahday 6 xubnood oo ay u doonayaan inay gudiga noqdaan doorashada maamulaya gudoonka golaha sare ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka 6daas xubnood markii dambe waxa warqad ku soo saaray gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Maxamed Cali Yuusuf Gaagab 6daas senatar waxay kala yihiin senator Aadan Cabdinaasir Maxamed wuxuu ka yimid ama laga soo galay baarlamaanka uu ka soo galay Koonfur Galbeed senator Saciid Cabdi Xuseen isna wuxuu ka soo galay gobolada Waqooyi senator Farxaan Cali Xuseen isna wuxuu ka soo galay Puntland senator Samsam Daahir Maxamuud iyana waxay ka soo gashay Galmudug senator Cabdirasaaq محمد عثمان اسمه كسو قلي جبلان إيو سنتر سمسم عبد الله أحمد وإيانا كسو قشي هرشبالة عبد الفتاح 6 xubnood ayaa ka shaqeyn doonta qabanqaabada iyo doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka aqalka sare wuxuu ka kooban yahay 54 senator waxaana xilka ka degaya gudoomiyihii hore Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana hadda gudoomiye kumeel gaar ka ah Maxamed Cali Yuusuf Gaagab gorsi horeysana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa isna magacaabay gudiga maamuli doona doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka inkastoo golaha shacabka aan la soo dhameystirin oo weli meelaha qaarkood kuraasi ku maqan tahay sida Jubbaland iyo Hirshabelle ilaa 10 xubnood ayaa la magacaabay 10 xubnood waxa loo kala qaybiyay 5 beelood oo golahu ku dhisan yahay ayaa min laba laga soo qaaday 10 xubnood waxay kaliya xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed xildhibaan Nasro Mahdi Caraale iyo xildhibaan Maxamed Xuseen هادي iyo xildhibaan Dahabo Suusow Maxamuud iyo xildhibaan Cumar Shariif Jeeg iyo xildhibaan Qaasim Cilmi Saad iyo xildhibaan Cabdullaahi Xasan Roble iyo Cali Sheekh Maxamed Nuur iyo xildhibaan Maxamed Abubakar Cabdi waxay diyaarinayaan jadwalka iyo sidoo kale qabanqaabada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka aqalka sare dubaba gudiga waxay iska dhex doorteen gudoomiye sidoo kale waxay doorteen gudoomiyaha diiwaangelinta murashaxiinta iyo gudoomiyaha gudiga maaliyadda marka dabcan waxay moodayeen hawsha hadda si
rasmi oo bilaabatay cabdifataax aad baad u mahadsantahay ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da magaalada muqdisho ayuu kaasi faahfaahinta warkaasi toos inoola socodsiinaya markana wararka caalamkan eegnaya sidaad warka caalamka ku maqlayseen waxaa maalintii labaad oo xiriira ruushka uu weerar ku qaaday warshadaha militariga ee ku yaal magaalada caasimadu ah waddanka Ukraine ee Kiev goorsii horreysay saaka waxaa la weeraray goob lagu sameeyo taangiyada iyo weliba gawaarida gaashaaman haatanna waxaa halkaasi ka shaqaynaya kooxaha samata bixinta faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa Kawthar Maxamed Cabdullaahi wasiirka wasaaradda difaaca ee Ruushka Igor Konashenkov ayaa sheegay in la bartilmaameedsaday 16 goobood isla markaana lagu burburiyay gantaalo aad u culus goobahaasi la burburiyay waxaa ka mid ah xarumo lagu keydiyo qalabyada hubka iyo bakhaaro waxa uu sheegay in sidoo kale la duqeeyay dukaan lagu dayactiro qalabka militariga oo ku yaala magaalada Mykolaiv ee koonfurta waddanka Ukraine Ruushka ayaa jimcihii duqeeyay warshad soo saarta gantaalada Neptune-ka sida midkii loo adeegsaday markabka Moscow ee laga leeyahay Ruushka kaasoo quusay saacado kadib intaa kadib waxaa deganayd xaaladda magaalada Kiev iyadoo Moscow ay xoogga saartay bariga iyo koonfurta waddankaasi Ukraine maayarka magaalada Kiev Vitaly Klitschko ayaa shacabka ugu baaqay inay iska dhiga tirin duqeymaha halka kuwii ka baxay magaaladana uu uga digay inay dib u soo laabtaan qaramada midoobay ayaa diiwaan gelisay in ka badan 1900 oo qof oo ku dhimatay duulaanka Ruushka ee Ukraine balse waxa ay ka digtay in tiradu intaasi ka badan tahay 1982 qof oo rayid ah ayaa la dilay intii u dhaxaysay 24 Febraayo ilaa 14 Abriil 162 ka mid ah dadkaas ayaa ah caruur sida uu sheegay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OHCHR waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay dad hor leh oo gaaraya 2651 256 ka mid ah ay yihiin caruur badanaa dilalka iyo dhaawacyada ayaa ka dhashay weerarada bamka ah iyo duqeymaha xagga cirka ah markana ku dhawaad 1,000 qof oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwii ugu nuglaa dadkii uu ku hantibeelay dabkii baabi'iyey suuqa Waaheen ayaa maanta magaalada Hargeysa waxaa lagu guddoonsiiyey lacag kuwaas oo dadkan la sheegay inay yihiin dadkii lacagahooda ay ugu yaraayeen $5,000 Mareykanka haddaba si aanu faahfaahin dheeraad u helo waxaan khadka taleefanka kula xiriiray Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee Somaliland wuxuuna ka mid yahay guddiga gurmadka iyo taakuleynta suuqa Waaheen walaal saad ka warqabto 2 wiig ka hor waxaa ka dhacay magaalada Hargeysa dab aad iyo aad u halis badan runtii dhaqaalihii waddanka iyo dhibaatooyin weyn u geystay iyadoo taa laga duulayo baryahaba waxa la waday daraasaadka iyo asasmanka ku saabsan dadkii ku waxyeeloobay dadkaas anagoo kaashanayna guddiyadii suuqa Waaheen iyo guddiga heer qaran iyagoo iskaashanayaan runtii arrinta dadaal badan iyo tacab badan la geliyey maanta waxaanu ilaahay noo suurtageliyey in madaxweynaha qaranka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu guddoonsiiyo dadkii ugu nuglaa ku tabaaloobay suuqa Waaheen oo tiradooda ku dhaweyd 1,000 qof dadkaasoo isugu jiray dadkii ka ganacsanay suuqa oo ka kala koobnaa maxaan ku raadayay qaybaha kala duwan ee suuqa intaasaan waa maanta qaybinay taasoo la qayb madaxweynuhu saambal ahaan gacanta uga saaray deeqdii loo qoondeeyey ee runtii inta ay u soo qortay guddiga ahayd oo loo dhammaystiray wixii guddiga u soo ansixiyeen oo la soo hubiyeen iyo inta kalena loogu diray moobiladooda iyadoo loo sii dhex marinaya banka dhexe jamhuuriyadda Somaliland ma lacag kaasha ayaa dadka siinayseen mise qalabna way la socdeen walaal waxaan siinaynay lacag kaasha lacagta markaa ma waxaad siiseen dad isku mihnada mise dad mihnadahooda ay kala duwan yihiin walaal suuqa waxa ku tabaaloobay ama ku loobay dad aad u fara badan oo kala duwan oo kala miinadeyaala laakiinse dadkii aan maanta siinay runtii waxay isugu jireen dhammaan inta suuqa ka kooban yahay hadday tahay khudradley hadday tahay bacadlayaal hadday tahay bacdiyaal hadday tahay intii suuqa ugu nugleyd oo qaybo kastoo suuqa ay ka mid tahay oo runtii rag iyo dumarba u badnaa sideed ku xaqiijinaysaan marka dadkaas aad maanta lacagaha siiseen inay yihiin dadkii danyarta ahaa waa su'aal wanaagsan runtii dadka waxaan ku xaqiijinaynaa walaal dadku dadka suuqan ereyada kubatay area mucayan oo la yaqaano bay ahayd dadka suuqa degana dad yaqaana oo runtii guddiyo leh oo nidaam dhisan leh bay runtii ahaayeen guddiyadaasi waxay guddiyo ka kooban qaybaha suuqa ka kooban yahay guddi guud oo runtii guddiyada matalaysa ayaa runtii arrintan shaqada ugu badan qabatay runtii halkana doonayay inaan uga mahadceliyo guddigaas waxay sameeyeen waxay u qaybiyeen say suuqu kala ahaa iyagaa soo diiwaan geliyey dadka way soo hubiyeen wayna soo qof kastana shuruudaha lagu xidhay waxaa kow ka ahayd qofku inuu ahaa kow dad qof suuqa ka ganacsanayay 2 inay alaaba kaga gubatay sababtoo ah waxaa jira dad suuqa deganaa laakiin wax u badbaadeen kolkaa runtii dadka maanta waxaan hubinay oon isla eegnay annaga iyo guddiyada
haddaanu nahay guddiga heer qaran oo uu hogaaminayo sirka diinta iyo awqaafta duqa caasimaduna ka mid yahay iyo guddiga guud guddiga suuqa waaheen ee iyagu runtii liiska soo unkay labadaasoo feerfaagareen dadkaasi in dadkii runta ahaa ee saxda ahaa ee ku waxyeeloobay marka ma dadkii dan yartahay oo dhan lacagti waad siisay